dalkeenu maanta guud ahaan ilaahay mahadi u jira waa nabad dhibaato ayaa ka jirta gobolka Sool gaar ahaan magaalada Lascaanood dadka reer Sool oo ah hormoodkii Somaliland taariikhiyan haddii ay tahay iyo hadday maanta tahayba ku suntan magaca Somaliland taariikhdiisa qaybta ugu weyn ku leh maanta dhibaatada jirta waxaan isweydiinaynaa maxaa keenay waxaan doonayaa halkan inaan ka caddeeyo oo caalamkana u sheegay cudur badan u sheego dhibaatada maanta ka jirta Lascaanood waxa keenay argagixisada caalamiga ah dhalinyarada iyo dadka maanta mudaharaadka wada uma wadaan xumaan iyo nacayb ay u qabaan jamhuuriyadda Somaliland iyo dadka Somaliland oo dalkooda midna u qabaan waxa maanta dhawahooda laga buuxiyay oo dhibaatada weyn abuuray argagixisada caalamiga ah waxay si gaadma ugu dishay muddo 10 sano ah 40 qof oo haldoorka Somaliland ah oo halkii dawladda shaqeynaya kuwa taageera ayay si gaadma u dishay in badan argagixisadii khidada dhigtay oo kala hayd qorshe dheer oo istiraatiijiga say dalka iyo gobolka khalkhal u gelin lahayd waxay abuurayeen nacayb ah waxa dishay dawladda Somaliland Soomaaliya markay koobantay cid gaar ah ma aha marka waxa la abaarayay argagixisada u diyaar garoobaysay in ay burburiso maamulka iyo dawladda ka dhisan dalka kolba intii ay gaari karto muddo ayay qorshaha shaar walba u soo gashatay argagixisadu mar wuxuu gashanayaa shaar diiniya mar wuxuu gashanayaa shaar qabaa'ila mar wuxuu gashanayaa shaar aqoonyahana mar wuxuu gashanayaa shaar siyaasiya qayb oo bulshada ama ku metelaya argagixisada iyo dadka fidmada wada way maxay wada bini'aadmiga ilaahay oo abuuray laba qaybood ilaahay jannada cadaab u sameeyay dadka ilaahay qaar wuxuu ku abuuray inay samaha wadaan oo horumar wadaan oo nabad wadaan oo bini'aadmigu waxa dad iyo diin iyo dalba ku wanaagsan ka shaqeeya isla markaa waxa abuuray oo shaydaanku hogaamiyaa mujtamac walba casri wala la joogaba waqti wala la joogaba in sharka ku foogan oo mar walba waxa wanaagsan burburiskeeda u toogahaysa waa wax caalamka la soo la noolaan doona haddana jira waxay iyaga u faa'iido ah waxa ay doonayaan oo ah inay iyagu tooda oo qura ku maamulaan hadba mujtamaca ay fidmada ka dhex wadaan in badan baynu maqlaan kelmadda khawaarij la yidhaahdo waa fidmadii asxaabta soo dhex martay ee iskaga hor yimaadeen asxaabtii ugu waaweyneed maanta tii oo kale dad wada oo yarayn oo taashooda ayaa abuuraya fidmada ka socota Lascaanood ma wada shicibka Somaliland dhammaantood shicibkooda kala lamadihiin waa dad wanaag doonaya wanaag iyo gobonimada ilaa awlaashooda soo dhaqma jiray lagama filayo waxa dhacdo kale shirka madax dhaqameedka ee Lascaanood ka socda waxaan ka rajaynayaa wixii laga rajayn jiray ee caadada u ahaa madax dhaqameed kasta dad kasta oo islaam ah cid kasta oo wax garanaysa shirarka madax dhaqameedku iyo odayaasha fadhiyaan wuxuu ka taliyaa mar walba nabad wadajir midnimo iyo in fidmada laga hortago kama duwanaan doono shirka Lascaanood waxgaradka iyo islaamka isugu tagaysan arkayo in ay soo saari doonaan wixii dalka jamhuuriyadda Somaliland dadkiisa iyo dalkeena u dara oo ka hortaga fidmo mooyee kama filana inay baraay ka soo dhacdo dawladda Somaliland oo maanta madaxeedu halkan fadhido hadday tahay fulinta iyo xeertijintii shalay aan kula joognaa oo dhan waxa uu diyaarinahay dhibaato kasta oo jirta wax kasta oo dawladda laga tirsanaayo inay si nabad ah oo walaaltinimo ah oo la wadaago oo loo siman yahay oo nin walba haygiisa keeno aynu kaga wada hadalno oo inagoo midaysan
oo waalimo iyo danteena iyo walaageena ka shaqeynayna aynu nabad xaalad ku soo celino waxaan ka soo horjeednaa dowladda nahay qof kasta oo shar iyo fitmo wada qof kasta oo balaayo horseedaya qof kasta oo diidan nidaamka iyo horumarka arrinta lagu celceliyay ee dadka lagu dagaalgeliyay ee dowladda dadka dishay waxaan leeyahay dadka arrintaa rumaystay waxay u baahan tahay arrintaa xaqiiqadeedu way hor imanaysaa inaynu isla helno in Somaliland wax garadkeeda arrintaa la dhacsiyo wada iyo dowladda ay arrintaa ku eedeynayaan fagaarihi ay ku soo bandhigayaan ka wada hadalhayeen inaynu isla gaadhno ee cadawgu tuudoonayo isku keen dilo in aan loo dhigan ulaan ee ninkii qaba Somaliland dowladda waxay yeeshay caddaankeeda kooran kii dilay oo hayo oo muuqday inaad halkaas ku too laakiin aan loo dhigan ulaan qof fidmadooda waxaan leeyahay dadka reer Soomaaliya maanta dhibaatada jirta waa inaynu nabad ku bedelnaa waa inaynu magaalada deganaansho ku soo celinaa waa inay carruurta iskuulka timaadaa waa in ay timaadaa cusbitaalka iyo adeegiisa la helaa waayo sabab aynu maanta dhibaato gudaheena u galaan ma jirto erayga ciidanka Somaliland ha baxo ciidanka Somaliland buu cadawga ka ilaalin dalkiisa u ilaalinaya waa erayga ay soo tuuraysa argagixisada doonaysa inay meesha fidma ka rido iyo buuq oo loo baneeyo ciidanku argagixisada iyo kuwa Somaliland dibna u ilaalinaya kamana baxayo Somaliland u daafacaya waxaan ku soo gabagabeynayaa baaqa nabadda ah oo inaynu waxaynu waqfina dhamaysano oo dhibaatada hore uga baxno ayaanu diyaar u nahay waxaan u mahadnaqayaa dadka nabadda ka shaqeynaya dadka arrinta aad iyo aad uga dadaalaya waxa ka soo noqday shalay gudoomiyaha golaha wakiilada oo hadda halkan ka hadlay war wanaagsan iyo waayeelnimo iyo si looga hawl galo oo aad iyo aad la soo xakameeyay cid waliba ayaanu ka wada hadalnay taasaan ku shaqeynaynaa ciidamada Soomaaliya waxaan ku ammaanayaa inay muujiyeen inay cadawga dagaalamayaan ee dadka Somaliland dagaalamayaan waxay muujiyeen inay reer Soomaaliya dadkooda yihiin oo xanaanaynayaan oo iyaga kuwa dhaxanta urdo ilaalaya ay yihiin ee aanay iyaga u qori karin wax xumaan ah iyo dhibaato ah way dhici kartaa marar badan oo isku dhacaan ciidamada amniga iyo dadku meel ma hargeysa ka dhacday burcay ka dhacday ceergaabay ka dhacday boormay ka dhacday waayo maxaa dhacaya dadka maxay arrintaas u dhacaysaa waxay u dhacaysaa marka mudaaharaad iyo safgaraaw yimaado ee dhalinyaro iyo dad xambaysan duminayaan dowladnimadii iyo hay'adihii dowladda ciidankeenu waa ka hortaga waan u dulqaataa laakiin ma haysano qalabka la yiraahdo maxaa qalabkii lagu hortagi waayay in mudaharaadka lagu hortagay ma haysano awoodeedina marihin marka wixii dhacay iyo dadkii dhintay waan ka xunahay waa ka tacsiireen haddana waa ka tacsiireena ka bacdi markay mushkilad si adkaatayna ciidanka waxa uu istaagay banaanka si uu dadka loo gudbiyaan isku dhicin waxaan ku soo gabagabeynayaa arrinta lascaanood waxaan ugu baaqaynaa nabad wada hadal iyo wadatinimo kormeer midda waa xaqiiqa dadka Somaliland leeyahay waa isku dal waa isku dan waa isku dad ma kala maarmi karaan inta midna kuma kala maarmi karaan marka sida caalamka mushkiladda dhexdooda u dhamaysto ay baan u dhamaysanayna dawladahaana diyaar baan u nahay nabad dulqaad dhageysi garqaadasho wixii xaqaa la shaqeeyo aad iyo aad u mahadsanid wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh